waxaan rabnaa markan saxafiga ugu wanaagsan ama wariyaha ugu wanaagsan inkastoo anigu aan islahaa lagama horeeya waxaana la ii sheegay in dad iga horeeya oo iga wanaagsan inay jiraan. soo dhawow waan leenahay wasiirka warqadda noo fur wariyahaas u yeeraca arke waa siiye wariyahaas aniga markaan soo qishay magaca waa aad buu nooga firfircoonaya. soo dhawow wasiir. aad u mahadsantahay Dolian. waxaan halkan ugu yeerayaa wariyaha ugu wanaagsan ee sanadkan tagaya sii dhamaanaya 2019 ee Soomaali u karatay gaar ahaan dhalinyarada reer Muqdisho. wariyahaasi waa saaxiibkay waa walaalkay Cali Aadan Muumin. Cali Aadan Muumin soo dhawow. Cali Aadan Muumin saaxiib soo dhawow. Dolian iyo Muqdisho awal waxaan uga mahadcelinaa inaan ka dheerahay inay igu soo aadiyeen. aad u mahadsantahay wasiir adigoo ku fasaxayna Cali laakiin waa isku haraynaa. Cali soo dhawow. marka hore waa ku hambalyeynaa in aad noqotay wariyaha sanadka 2019. halo Muqdisho waan ku guuleysay. maxaad ku guuleysay leedahay? waxaa magaalada Muqdisho joogta 3,000 oo wariye. maxaa laga soo xulay? وما سنتين ورتا مركز حماد علنا الله سبحانه وتعالى مركز كلا وحرب أنا سقاس وسلامه ضدك جابن سيدا نيجو كلا تبدأ بحربة أنت أنا شيء صوفة مارتي ويديسي أنا أديك هو سؤال لي سؤال أو ستة تكون وريه حاجة كان ترى داس كم سوقات بقول وريه شو ما استاي ورياش كمان في عدي لكن وحنا مثلا نصيب كأيه ليه كمنان إجا قوم بدن إجا سهرية إجا ندمبين دونا جرا وحنا ما هاد علينا يا ضد كعد كود إسيه أي كرتي إن أنا هاي قفت مدن مصر كان لسياب المريض قلنا هذا ما اسمه قد محدث وتكون متيسطة أو واسطة برنامج ور تابين يعني ما حد تكون متيسط waxaan ku mutaystay sidaan anigu aaminsanahay in dadka iyo codeeyay oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed qaar madaxda ijecel inay jiraan oo maleynaya laakiin shacabka Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan anigu madaxda maxaa ka wadaa tusaale way xireen marka jacayl uma jeedo wariyaha marka la xiro ama wariyaha la ciqaabo hadda waxay tira wariyaha Al-Jazeera ka xiran oo Qaahira ku xiran maalin walba Al-Jazeera waxay update ka dhigtaa maalinta ku korantay 2020 maalmood oo xiran yahay yani waxa wariyahaas waliba waxa loo sii qorsheeyaa awaad yaala Dooxa ama Qatar yaala maalinta xabsiga ka soo baxay in la guddoonsiin doono maalin kasta oo xarigiisana waxa u socota lacag $2,500 ayaa u socota marka xarigu dhib ma laha sida kale to maxaa isleedahay bulshada waa ku soo kordhisay bulshada waxa ku soo kordhiyay anisan aaminsanahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aniga ila midka ah aan baray inay hadli karaan oo ay xaq u leeyihiin inay hadlaan sababta wax kale ma ahan aniga marka hawshan bilaabayay media ma isan fogeyn sida daraadeed waxaan la kulmay bulsho madaxeedu hoos jiro sida daraadeed waxaan aaminsanahay qofku intuu nool yahay inuu xaq u leeyahay inuu hadlo waxa oo lala kulmo waxa kamid ah nolol iyo geeri mid dooranaysa way badan tahay tirada aan naftayda qadimay ee aan maaragtay u qadimay si aan dadka iyo codeeyay kuwa lamida iyagaba aan ugu sheego wax ay mudnaayeen in loo sheego goorma ku soo biirtay saxaafadda sanad waa tahay ay lagugu xantaa jira gabagabadii ma isku taqaanaa waa caadi dadku waxay dhahaan qarax buute laakiin cuntada cunaa waa tahay aqbalyo
aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo waana kula wadaagayaa inta ku codaysay iyo baada saxaafadda waa kugu dhiirigelinayaa runtii kartidaadana waa soo dhaweynaa halkaana kasii wada dadaalkaaga waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inaan kugu qabsan doonno awaadka laftirkeen aad u maasan waa tacaala aad u mahadsan yahay yaa noogu xiga